فيديو دحديسا gabadha ugu dhex digri okay marka cid ka soo hadashay iyo cid maxaa la ka hadasho dhan waa same isku mid waa dhamaan adiga iyo kuwa kale midka okay maadaama kuwaas isku mid tihiin ay yihiin adiguna ka marka waxa iga muuqato CK inuu xanaaqi ugu dambeeyay waliba asoo dadka ay stupid area adag adeegsada macnaha waxa uu jeedaa lahjad adag asoo adeegsaday taas macnaheedu waxa ay tahay ninkan inuu xanaaqay okay ilaa hadda ma jirto cid asab beegsatay aniga inta aan arkay oo asoo wax ka sheegayso intaan xanaaq full dhaay xanaaqan ahan dadka soo hadlay inuu xanaaqsay macnaheedu waxa ay tahay dislike muuqaalka private laga dhigay dislike ta ka badatay saayida dislike loo saaray maadaama xilli xun adag oo ka soo hadlay gabadha كنت أنا ونحسن داود ما كنت جوتيني سلبه ونضع ونحسن كسر هذا مركلي ومقال قروح بدن هل كان داود ونحسن وبتبقى شوف الدم سبسكرايب ساجنا كهديات كل سبت الله شير كومنت أنت ولا دنيا وحكوا الخلا ويلكن عد كلام معها بم وخلك إيه مسكينك أوكي مقال قصو سيكي يا كل جن ولا ولا جن كاس على حياة ولا وحيسي ولا قنين ولا وحيس لكن إلا عدا ما سؤال ما هينا ملو قنيني ملو حناجي ملو حلو شيء كلية مقال واجر وصوب بوي أو عيونك هذي kadibna lagu dhaliyay kana saaray ama bareefad oo ka dhigay muuqaalka markuu bareefad ka dhigay wuxuu soo diray kadib waxa ay dinay iska aamuso maadaama bareefad oo ka dhigay muuqaalkii wuxuu soo diray muuqaal canaan ah oo warta asla eegna ciwaan wuxuu soo dhigay sababta video uu saaray iyo raali gelin okay intaas waa okay raali gelin hadii aad bixiso video-gan aad ka saarto waa okay laakiin wax meesha hadda ka socdo wax uu ku hadlaa ayaa aniga cajab geli ways sida darteed waxa go'aansan inaan ka hadlo xaqiiqadan aan u sheego assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin meel kasta adduun calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhow ka joogtaan waa CK oo idin leh isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh waxaan ku rajeynayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabato sidaan anigu caafimaad qaba hortaada ugu soo laabtay waayahay sidaad ciwaanka xagga saraba ku qoran aad ku soo aragtay muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa aaway videoga aan uga hadlayay gabadha xaguu aaday maxaa looga waayay janaalkayga taas waa mid aan soo dirin xagees aaday video soo gelisay maxaa loo waayay janaalka xagee kula qarantay walaal ayaan uga hadli doonaa iyo sababta keentay iyo waxyaabo kale oo fara badan oo cadeynteeda miiskan aan soo saari doono ugu horeen aniga videoga aan ka hadlay eeyaa hadlaaya waxay ku bishaaraysanayaan delete maba taabanba una inaad delete taaban aad bareefad ka dhigay cid walba fahamsantahay muuqaalada in bareefad laga dhigo sometimes hey eeyaa qeelna lafaha loo tuuro bareefadan ku qabtay stiilna janaalkayga waa laga heli karaa sababta aan taas u leeyahay waxay tahay ama aan bareefad uga dhigayba oo aan delete u taaban waayay eeyaha waxaan ogaa iyaga laftooda ay ku jirto aniga inay wax ugu dhacaan inay ku soo caanbaxayaan aaminsan oo sugaba CK ma kala dariis ka dhacay inay soo fariistaan waxaas wax kale ka soo dhaxsaaray sababta bareefadka inaan ugu qabto muuqaalkaas aan dadka indhahooda ka qariyo isagoo ku jira 3 saac waxaan gaarin isagoo 3 saac meelahaas waxaan gaarin ama 3 saac ku jira waxa ila soo xiriiray wiil YouTuber ah oo arinta igala hadlay wuxuuna igu yiri waxa u baahan familkeeda qof kamid ah inay ismaqashaan ugu dambeyn waxa suurta gashay inaan ismaqalno gabadha walaalkeed oo aan si kale u aqaanayba gabadha walaalkeed iyada la dhashay oo aan si kale u aqaanay ayaan ismaqalnay iwuna yiri aniga waa niyo Umar Kirishow ninkaas gabadhan anaa la dhashay haddaba ogow macnaha si kale asaga u aqaanay gabadhan kuma aqoonin kadib wuxuu igu yiri brother in arinta aad ka soo hadasho oo sida qiirale uga hadashay oo aad u muujisay walaasha inaad difaacayso waa kaaga mahad celinaa ana waa fahanay gabadha waa si goona u taqaan asna si goona u taqaan laakiin in ay wada dhasheen ma aadan garanayno okay already shalayda dheereed ay arintan bilaabatay TikTok oo meesha ugu daran hadda Soomaali ee caanimada qalad uga faantay saas qashan camal uga buuxaan ayay cawaanimadooda soo wada dhigeen videogiyo sidiisa ah kadib wuxuu ugu yiri brother waa dhageystay videoga aad soo duubtay totally ba xamaasada lahaa aad uga digaysay dadka adiga ku daawada muuqaalkaas inay arki doonaan iyo intii aragtay markay isha ku dhuftaan inay share gareenin waa arki wax allaala waxa ku hadashay balse hadda waxaan ka codsanaa inta family ahaan ha noqoto si kale qofku waxaan u geystay inaan raadina ha noqoto inta arintan aan saldhig u sameynayo anoo walaalkeeda oo saas ay taqaanay aan kula hadlaaya waxa ka codsanaa brother
hadhow kale markii arrintan aan gacanta kusoo dhigno qofkii sameeyey oo kale in aad kasoo hadasho anaa diyaar kuula ah. laakiin hadda inta arrinta saldhig ah u yeelayo waxaa kaa codsanaa in videoga aad private dhahayd amaba aad ka saartid oo dadkan indhahooda aad videogan ka leexisida kaa codsanaa. masaasaa brother diyaaraan u ah. haddii ay qalad keentay in aniga aan soo fadhiisto aan ka hadlana 100% adi ahaan oo saaxiibkii ana waa kaa raaligelinaa. muhiimaddu waxay tahay qasdiga aan uga soo hadlay in ahayd inaan ka gubtay gabadhaas walaashii ah in dhibaatadan loo geysto ayay ahayd qasdiga iyo muhiimadda uga hadlay. haddana haddee sidaa tahay brother waa kaa raaligelinayaa. muuqaalkana bareefad ayaan ku qabanayaa oo indhaha dadka waa ka qarinaya. intaa markii aan wiilka walaalkeed isku afgaranay marna saaxiibkay intaa markaan isku afgaranay okay انت soo sameeyso waa okay hadii muuqaalka aad ka bixisay private ka dhigay walaalka warkaas aad qaadatay intaas waa okay wax xumaan hadda kuma jirto nawad ciyaarta marka ilaa shalay ilaa xalay ilaa saakadan halkan aan fadhiyo hadda waxaan kala shaqeynayay familkeeda arrintan sida ugu macquulsan ee kusoo gabagaboobi lahayd iyo manaxii arrintan geystay sida falkiisa loo gali lahay ayaan kala shaqeynayay aniga oo siike taas horta ma kala shaqeyn kartid ba sababtoo ah hore waa joogtaa meesha ma muqdisho soo wala shaqeyn kartaa maxaa ka tiri kartaa qofka hadii ay taqaan wiilkaas wiil ay maxalla is wadi yaqaanin ay tahay iyada shay karta kadibna labada famil ay dhaxmari kartaa wixii macaamiil ah iyo wixii maxalla xal ah taas meesha u gudbin in gabadhaas aan la sheergareynin muuqaalkeeda oo aan iyada u doodayay arrintaas aan ka hadlay totally ba inaan ka aamuso waa ku ficneed qalad weyn waaye oo siikay ka dhacay waayahay waa qaatay totally ba waa qaatay raaligelinteedana waa dhiibay ninka raggana waa ninka qaladkiisa qaatay okay taasna qaladkaada waa qiratay inaad maxalla ka hadashaysaneen safe ay ahayn waa ka hadashay waana maxalla waa dadkii dislike dhac kuusii warkooda maqashay maadaama dislike laga badiyay hadii walaalku soo hadlan hadana maxalla amarkiisa police waxa soo dhab okay waan fahmay ka soco hata videogaas markaa indhaha dadka ka qariyay oo walaalkeed ismaqalnay ayaan aniga qaladkayga qaatayba. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay eeyaha intay meel soo fariisteen ayagoo muhiimadoodu tahay aniga inay ugu soo caanbaxaan fiiriya khayra jabaan muhiimadooda ma aha in gabadha ay ka damqadaan. muhiimadooda dhan waxaa waaye youtube waa lagu fashilmay aniga in lagu soo caanbaxo ayagoo inta soo fariistay gabadha sawirkeeda soo qaatay gabadha magaceeda ciwaan ka soo dhigay videoga dhexdiisa gabadha ugu dhex digay. okay marka cidda ka soo hadashay iyo ciddii maxalla ka hadasho dhan waa same isku mid waa dhamaan adiga iyo kuwa kale midkay okay maadaama kuwaas isku mid tihiin ay yihiin adiguna eeyata marka kulli waxa wada qeylana waa eey ka soo brother dadka masaakiinta oo khayra jabaanta aad tusinaysid ay kicinaysid halkaan ma fadhiyo halkaan kursiga libaaxa fadhiyo roon kursiga xitaa libaaxa fadhiyo laftigiisa halkan ciyaaraha turtaani waliba bal fiirin ka horta waxay dhageysto wuxuu dhahay dadkaas isku mid aan nahay eewa asana eeyga ka mid yahay baa waqas ayaa dhigi kara kul marka eewa dadkaas oo dhan cidda ka hadashay yaa asaga wada eewa loo tuuro waa soo fariisatay gabadha magaceeda soo qaadatay sawirkeeda soo qaadatay adoo iska dhigaya in gabadha aad u danqanaysid oo aad aniga igu soo caanbaxdid muhiimadda fiiri muhiimadiisa dhan waxaa waaye gabadha maskiinta oo walaashiis inuu u damqado maaha. muhiimadiisa dhan waxaa waaye ninka siikay ahaa arrintaa inuu ka hadlo ku qaldanaa mahano ha soo fadhiisto oo kusoo caanbaxa. haddaba dadku dabaala maaha maskaxay wada leeyihiin maskaxdoodana way fikiraysaa. haddii adiga dabaal aad tahay oo siikay inaad kusoo caanbaxdo jaanis u raadinaysid dadku dabaala maaha. su-aasha ku hortaalla waxay tahay waxaa ku haysataa siikay in arrintan uu ka hadlo inayan ficneen. waayahay siikay uu ka hadlay 2 saac iyo wax yar kadib muuqaalkii dadka indhaha uu ka qariyay. adi waa soo fadhiisatay gabadha sawirkeeda soo qaadatay magaceeda ku soo qortay videoga dhexdiisa maanta dhan magaceeda ugu digrinaysaa adi maxaa isdhaana hey eeyaa qeelna lafaha loo tuuro adeer dadka dabaalo ma aha maskaxda qolofkee adiga ku saaran ee xitaa caanimo inay adi magac ku yeesho ku siin weysay oo aad sugtid nin asaagaya qalad diris ka dhaca inaad kusoo caanbaxdid waxay ahayd way kale inaad fikirtid waayo dabaalnimadaada ninaa ugu soo fariisatay gabar uu ka hadlay dad badanaa ku xiran wuu sii faafiyey
adiga waa soo fadhiisatay ninkaas asoo bareefad ka dhigay oo storyada soo dameeyey inta soo fadhiisatay magaceeda soo qaadatay sawirkeeda soo qaadatay muuqaalka dhexdiisa maanta dhan magaceeda ugu digrinaysaa yani muuqaalka dhexdiisa muuqaalka gabadha laga wadayna ma soo qaadan magaceedana ma soo qaadan balse adiga waa soo fadhiisatay gabadha magaceeda muuqaalka dhexdiisa ugu digrinaysaa adiga iyo aniga same shit aan ah haddaan aniga qaldamay adigana waa iga daran tahay oo gabadha magaceedaad ku digrisay ilaa haatanna janaaladiinu ku jiraa all eeyaha soo wada qaatay oo dhan oo aniga igu raadinaya inay ugu soo caanbaxaan eeyahaas oo dhan qaladka aan galay midka weynay galeen ilaa haddana way ku jiraan ay kasta oo magaceyga soo qaatay oo gabadha magaceeda soo qaatay oo muuqaalka dhexdiisa wah kale kulli qaladka CK uu galay unbaa wadadiisa raacdeen adigoo og in muuqaalka CK uu bareefad ka dhigay haddii gabadhaas aad rabtid waxeeda inuu faafin adiga ruuxaaga maxaa u aamusi weysay waayo muhiimadaada ma aha gabadha inaa u doodiday muhiimadaadu waxay tahay CK qalad diriis ka dhacay aan soo fadhiisto anaa maanta lii baranaa oo soo caanbaxaya stupid ayaa tahay aan nixin waayo walaasha oo masaakiina ceeb ku halkan waxaa iga muuqato CK inuu xanaaqi ugu dambeeyay weliba asoo dadka stupid eraya adag adeegsada macnaha waxaa ula jeedaa lahjad adag asoo adeegsaday taas micnaheedu waxa ay tahay ninkan inuu xanaaqay okay ilaa hadda ma jirto cid asa beegsatay aniga inta aan arkay oo asa wax ka sheegayso intaan xanaaq fulow dhahay xanaaqan ahan dadka soo hadlay inuu xanaaqsan yahay macnaheedu waxa ay tahay dislike muuqaalka bareefadka laga dhigay dislike-ta ka badatay saaida dislike loo saaray maadaama xilli xun adag oo ka soo hadlay gabadha dislike ayaa laga badiyay sidaas awgeed xanaaq ka buuxaya aniga sida ay la tahay fikrad ahaanteedu waa taas walaalku uu xanaaqsan yahay bulow dhahay dislike-tan xanaaqsan yahay heestii waayaha cusub sida loo galay ayaa loo galay ma fahamteen heestii waayaha cusub sida loo galay ayaa CK muuqaalkaas loo galay dislike-ta laga dhigay sidaas darteed wuxuu kula degdegay bareefad waa ogtihiin maalmo hore waxay isku dhiganaayeen CK iyo ninka la yiraahdo Dirisle muuqaalo badan oo soo hadlay ninkan oo ku garaacay xitaa heeso u dhahay dhowr intaas ma dhaafaan oo dhulka la galay inta umar asoo aad u dhiga hadlaa cid walba committee soo dhibanaya Dirisle ninkaas oo maaga ma ka qalay CK ma ka soo hadlin ilaa hadda macnaheedu waxa ay tahay inuu ka xishooday macnaheedu waxa ay tahay haddana inuu meel cad ah ka burqanay oo ka xanaaqay walaal qaali mararka qaar waa la xakameeyaa mararka qaar slowly si nidaam ah ayaa loo dhaqmaa mararka qaar waxyaabaha sidaas oo kale ah waa laga xeelaystaa xeelays waxa la jira marka haddii marka aad inta waxay iga caddaatay aniga ninkaan CK in uusan break qabsan in uusan meel cadla ah ka burqanaya burqadaas xanaaqaasna kuleelkaasna waxaa ka keenay dislike-ta lagu daldalay waa maasantiin waxaan rajaynaa in video share garay doontaan like share comment inta idinka doonayo wax kula hadlaa wiilkiin like share comment babam kalkaciya